Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kooraskeenna farsamada baabuurta. Waxaan ku guda jirnay cutubkeenii shanaad. Insha Allah waxaan bilaabanaa casharkiisii saddexaad. Casharka saddexaad waxaan uga hadli doonaa cilladaha ku dhaca gawaarida ama baabuurta. Casharka waxaan soo jeedinayaa anigoo ah Maxamed Xirsi Faarax. Wixii jawaab celin waxaad noogu soo celin kartaan emailka shaashadda inay ka muuqda. Kooraskan waxaa kala socoteen Somalism Online Academy. haddii aan u guda galno kooraskeenna casharkeenna cilladaha ku dhaca gaariga. Cilladaha ku dhaca gaarigu aad u badan yihiin, laakiin wax u kala qaadanaa qaybo. Cillad kasta meel bay ku dhacdaa. Cilladaha gaarigu uu la daarmi waayo waxaa ka mid ah gaarigu inuu bilaa shidaal yahay, batteriga oo dab la'aan ah. Haddii gaariga batterigiisu uu dhacsan yahay oo dab la'aan yahay oo kale ma daarmayo. Dabka gaariga oo xumaada, salafka oo xumaada. Salafku waa matoor daarihii oo xumaada. Sidoo kale matoorka oo duqeeya ama galaasadii ay xumaadaan, riimankii oo kale duqeynta waxaas la yiraahdaa in matoorka uu kharaabo. Cilladaha ku dhaca kileeshka sida soo sheegnay nidaam kasta waxaa la oran jiray cilladaha ku dhaca. Hadda nidaamka ka soo hadlana waxaa nidaamka matoorka cilladaha ku dhaca la daarmi weyne. Sidoo kale nidaamka kileeshka cilladaha ku dhaca waxaa ka mid ah saliidda oo gudbi weyda kidka. Kileeshka oo saliidda u gudbi weydo oo kale ama gudbin waaye. Saliidda oo u daadiyo, yani nidaamka kileeshka oo saliidda daadsha. Godka oo faaxa, godka saliidda ku jirto oo waranku riixayo oo faaxa. Saliidda ka baxaysa oo yaraata, saliidda baxaysa oo raacaysa maxaa la oran jiray dhuumaha saliidda oo yaraata. Godka saliiddu ka baxdo oo xirma, saliiddu godka marayso tubooyinka dhex marayso kale oo xirmada. Waranka riixa oo gaabta ama dheeraada. Waranku wuxuu ka bilaabanayaa badeelka markaa cagta saartid. Waran baa wuxuu riixayaa kidka wuxuu sii riixayaa saliidda. Marka saliidda dhuumihii maraysa kadib gaaraysa meesha loogu talagalay. Kadib waran kale jirayo asna sii riixaya waran kale iyo kid kale oo sii riixaya xagga iyo saxan kileeshkii. Marka waramadaas ku jira maxaa la oran jiray nidaamka kileeshka oo ama dheeraada ama gaabta. Iyaduna waxay ka mid tahay cilladaha ku dhaca kileeshka. Cilladaha ku dhaca isleef kileeshka. Saliidda oo saliidda oo daadiyo, waranka oo riixmi waayo. Sidoo kale warankiyaasna oo riixmi waayo. Godka nibalka oo xirma. Godka nibalku waa meesha laga saaro nidaamka saliidda kileeshka, meesha laga saaro godka nibalka la. Godka kidka oo faaxa. Kidku meeshu ku jiro haddii faaxdo kala weynaato waxa laga yaabaa saliidda daato. Gala saliidda, nidaamka saliidda kileeshka oo dhex galo ayadoo kale cillad bay keenaysaa. Tuubo farsibil oo dilaacda. Tuubo farsibil oo tuubada qaadaysa saliidda. Waranka oo dheeraada ama gaabta. Waa warankii labaad aan ka sheekeynaa isaga. Cilladaha ku dhaca bilatoonka iyo saxan kileeshka. Weli waxaan ku guda jirnaa nidaamka kileeshka cilladaha ku dhaca. Ilkaha bilatoonka oo dega, yani ilkihii soo taagnaayoo hoos u laabto oo kale. Cadaadiska bilatoonka oo yaraada. Digis ku dhacda cagafka. Nuglaan ku dhacda bilatoonka. Gubasho ku dhacda saxan kileeshka oo gubta. Godka gubashada waxa keenaya yani matoorkii meeshii ku wareegaysa way marka inay yani biro isxoqaan oo kale gubashada keenaysa. Godka asbiriinada oo dega ama jilca. Digis ku dhacda cadadka saxan kileeshka cillad ku dhacda. Digis ku dhacda dego. Cilladaha ku dhaca break. Nidaamka kileeshka ka soo baxnay hadda nidaamkii baabuur istaajinta baa guda galana cilladaha ku dhaca break. Istaajin waa ama qaban waa, yani inuu gaariga istaajin waayo kale. Lugaha oo qaar qabto. Waxa laga yaabaa nidaamku inuu lugaha qaarna qabto qaarna oo maxaa la oran jiray qaban. Taasoo kale waa cillad. Waxa laga yaabaa gaarigu inuu gudoomiyo sidoo kale asagoo gaariga xawaaro ku socda hadda break qabatid oo lugaha qaar qabto. Lugihii kalena ay soconayaan waxa laga yaabaa inuu gaariga u gudoomo kale. Ku kala hormarid qabashada lugaha. Inuu markaa damacay break qabo oo kale inuu lugihii ku kala hormaro midba mar qabto. Taa iyada laftigeedana waxay keenaysaa dhibaato. Awoodda istaajinta oo yaraata. Inuu yani qabashadii uu istaajinayo oo yaraata. Qabasho salka ah. Qabasho salka ah waxa laga wadaa yani markaa break isla dhigtid oo xog u qabatid marka inuu gaariga istaajiyo. Qaylad timaada marka break la qabanayo.
in markaad waa inaad breeki qabtid oo kale oo gaariga qayliyo kale dhawaaqo oo aad dareentid in birihu isxoqayaan adkaan ku timaada bareega in bareega markaa qabanaysid oo kale xoog u qabatid oo kale yani adeeg aad dareentid oo kale iyada laftigeeda waa cilad habka hashkada matoorka inuu matoorku hashkadeeyo gargariiro waa maxay hashkadu waa matoorka marka uu sameeyo gariir taas oo ka dhalata bastomada oo aan shaqo wacan sameynayn bastomada sidii la rabo u shaqeynayn bay ka dhalataa sidoo kalena shaqada matoorku waxay noqon kartaa labo yani matoorku laba nooc bay shaqadiisu noqon karta kow inuu minima yahay matoorku marka uu minima yahay marka uu saxan yahay matoorku marka matoorku saxan yahay waxa la yiraahdaa minimo waa marka matoorku marka uu matoorku u shaqeynayo si wanaagsan oo uusan lahayn wax hashkad ah ama gariir ah khaladna uusan ku jirin bastomada markay saxan yihiin wanaagsan yihiin markaas waxa la yiraahdaa gaariga uu si la rabo u shaqeynayo minimal ah ama laba inuu maarsima yahay marka uu maarsima yahay marka uu wax ka khaldan yihiin matoorka waa matoorka gaariga wax ka khaldan yihiin waa marka matoorka gaariga wax ka khaldan yihiin sida in gaarigu faasadu isdaba marsan tahay oo aysan haysan sidhinkii saxda ah ama isbiindadu wareegsan tahay sida gawaariyaasha batroolka ah gaariyaasha batroolkana isbiindada wareegsan waxaana keena in faasada gaariga laga shaqeynayo oo ay sidii la rabay loo sixin ama loo xirin gaariga marka laga shaqeynayo kale waxa laga in faasadiisa si fiican loo xirin taasoo kale keenaysa marka in hashka timaado oo gaariga oo cilad ku dhaca gariir keeno waxaana taas lagu daaweyn karaa gaariga oo minimadi loo celiyo oo faasadiisa la soco qaybaha hashkada keena maxaa hashkadii marka keenaya gaariga inuu hashkadii gargariiro waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah faasada ka mid ah shidaalka ka mid ah kaalbeedharka ka mid ah dabkiibaa ka mid ah haddii dabku asaga bastomada qaraxa siinaya oo kale haddii uusan sidii la rabo dabka u qarxin oo kale bastomada iyadoo kale hashkad buu keenaya waalasha ka mid ah riimanka ka mid ah riimankana waa soo sheegnaa filaya riimanka waxay ku jiraan bastomada ku jiraan riinka olyada iyo riinka dabka iyo xariga balaagyada balaaga xarig baa dabka siinaysa ma xarigaasoo kale haddii cilad ka jirto kale hashkad buu keenaya irbadaha jigtarada waa kala garanaysa kuwii shidaalka u keenayay bastomada bumbada waa tii shidaalka soo buumgareynaysa laftiga haddii mushkilad ka jirto hashkad buu keenaya gaariga wareegu waa hab suurto geliya in matoorka uu istaarmo wareega waxa uu u qaybsamaa 3 qaybood wareeg fiican wareeg yari iyo wareeg la-aan gaariga inuu shaqeynayo laakiin uusan si fiican u shaqeynayo kale waa wareeg yari inuu gaariga shaqeynayo kale asagana waa wareeg fiican baa wareeg la-aan waa gaariga marka uu shaqeynayo fiiro garaa wareega waxaa dhaliya salafka gaarigu inuu wareego oo dee waxaa dhalinaya salafka baabuurka ama starterka dhalinaya motor daaraha wareegyaridu waa matoorka oo aan u wareegin sidii la rabay wareegyaridu waxay ka timaadaa qaybahan bateriga ka timaadaa moorsooyinka ka timaadaa kaawooyinka ka timaadaa salafka ka timaadaa qaybahan marka uu mid ka mid ah xumaado waxaa dhacaya in wareegu yaraado baterigu markuu dabkiisu yaraado waxaa yaraanaya wareega moorsooyinka marka ay sameeyaan dabac markay dabac sameeyaan waxay luminayaan dabkii bay luminayaan kadibna waxaa yaraanaya wareegii yani markay dabac sameeyaan oo kale jilcaan oo kale waxay sameynayaan hal yiraahdo waxay dhuminayaan dabkii bay dhuminayaan taasoo keenaysa wareegii inuu yaraado sidoo kale kaawooyinku marka ay sameeyaan dabac iyaguna waxa ay dhumiyaan dabka kadibna waxaa yaraadaa wareegi salafku marka uu xumaado waxaa dhacaya in qaybaha wareegu ay yareeyaan shaqadoodii wanaanada marka ilkaheedu masaxmaan waxaa sidoo kale yaraanaya wareeg wanaanadu waa meesha soo gudbinaysa socodka uu motorku sameeyo soo gudbinaysa waxa la yiraahdo soo gudbinaysa xaggan iyo gearboxka ama sanduuqa gear wareeg la'aan waa motorka oo aan wax wareeg ah sameyn taas oo ka dhigan in motorku uusan daarmin ama shidmin wax shaqo ahna aysan ka dhex socon motorka gudihiisa dhammaan nidaamka gaarigana
wuu wada istaagaa haddii uusan matoorku daarmin. Hadduusan matoorku daarmin nidaamka gaariga dhan wuu wada istaagaya, wax shaqa gaari kama dhex soconayso. Qaybaha wareeg la'aanta keena inuu gaarigu uusan wareegin oo shaqayn, waxyaalaha keena waxaa ka mid ah bateriga waa ka mid ah, hadduu bateriga dab la'aan yahay oo kale, muursooyinkii haddii ay dabcaan ama furmadaan oo kale, kaawooyinkii waa ka mid ah, kaashadaha ka mid ah, kaashada istaarka ka mid ah, xariga dabka keena kaashada istaarka ka mid ah, waayirka istaarka ka mid ah, kaambiyaha otomaatiga ama maskaxda ah ka mid ah, rileyda istaarka iyo waayiradeeda ka mid ah, otomaatiga selafka ka mid ah, kiishka armeeshinka dhuxusha ee selafka ka mid ah, wanaanada ka mid ah, iska hor imaad waalasha iyo bastomada ka mid ah, duqeyn inuu gaariga duqeeyay oo kale kharaabay waa ka mid ah. Cilladaha ku dhaca biyaha iyo hawada, nidaamka qaboojinta gaariga cilladaha ku dhaca, kuleyl ku dhaca matoorka, yani haddii aysan biyihii si fiican loo qaboojin gaariga matoorka wuu kululaanaya. Kuleyl yimaada marka gaariga socod dheer sameeyo, wareegga biyaha oo istaaga, wareegga biyaha oo yaraada, hawada oo yaraata, hawada oo istaagta, naqas raaca biyaha, raaytooraha oo hawadu soo dhex mari weydo, waayo haddii aysan raaytooraha hawadu soo dhex marin hawada biyihii ma qaboojinayso. Haddii biyihii aan la qaboojinna waxaa dhacaysa in matoorka kululaado. Raaytooraha oo juuraata noqda, raaytooraha oo biyaha ku shuba caagada saa'idka si saa'id ah, olyada oo biyaha ku darmata, hydroliga oo ku darmada biyaha oo olyada ku darmada. Yani haddii ay kuwaan isku dardarmaan iyada laftigeeda waxaa imaanaysa cillad baa imaanaysa. Gunaanad, cilladu waa in sidii loogu talagalay shayga ay wax iska bedelaan, yani sidii ahayd inuu noqdo shaygan u shaqeeyo oo caadi ahaantiisa haddii ay wax iska bedelaan, taas ayaa la yiraahdaa cillad. Cilladu waxay ku imaan kartaa shayga oo waqti badan shaqeeyo oo daala iyo farsamo xumo, yani gaariga laga shaqeynayo si khaldan looga shaqeeyo kale inay keento baa dhici karta. Cillada gaariga ku dhacda waxaa ka mid ah in gaarigu istaagi waayo, in geerka laga bedeli waayo, socod yari gaariga ku timaada, iyo in gaarigu uba daarmi waayo. Cilladahan kasoo sheekeyno dhan in gaariga ku dhacaan ayaa ka mid ah cilladaha gaariga ku dhaca. Dhammaad casharkeena maanta intaas ku egyahay, intaan ku kulmi doono casharkan cashar ku xiga insha Allah waxaan ka tagayaa khayr insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.